Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta samay tragan ka shaqeynayno Caterpillar engine fuulo waxaa ka haleysnaa EGR-ka oo exhaust stock noqday. EGR-ka aan bedelaynaa iyo maxaa lahaa one brake chamber oo ku dhagay one brake chamber-kana brake chamber inta isku jira dhowr mar aan tusay waa kaas inkastana waa tragan waa trag weyn Peterbilt aan sameeyey waxaa fuulo engine oo Caterpillar ah. Korkan waxaan ka shaqeynayaa AC-gii aan shaqeyn waayey. Here is the AC gate. AC gatekiisa waa kaas waayaradii waxaa gocayay oo AC-ga kan aadayay condenser switchkii iyo kan aadayay maxaa lahaa AC compressor-ka gocay. AC-ga ma shaqeynaynin, so as you can see maxaa lahaa fiiladiisina waa kaas meel uu ka gocay. For example haddaan ku tuso dhowr meel uu ka gocay junk wire. To know something about gaarigan turbocharger ku xiran laba turbocharger, hal waa kana halka kalena waa kaas. Is highly compression gaari waaye gas badan cunayo. So Soomaaliya ma ku fiicna bad gaariyaan waxay jiidaan 20 tan 30 tan 50 tan ay jiidaan oo xamuul ah, as you can see it. So here is the alternator kiisa waa kana AC compressor kiisa waa kana tensioner beltigii buligii iyo van bender. The fan clutch kiisa waa kana oo adeegya u fiican yahay. So it's kind of good. So this wires was broke. The reason he doesn't work, he's AC compressor, so they were rubbing somewhere, so I cut them. You see right there, even in here is corroded, so I just replaced the two wires and charged the system. It's gonna be good to go. This truck is not too great, Huh? Twin turbo. Yeah, that's a strong truck. The fifth wheel in the back.